adduunyada daafeheeda waxaan uga tacsiyeynaynaa cadada dhibka badan ee soo bilaabatay xalay ilaa saacadan aan joogno waxa ay ka harsan yihiin dhacdaas oo ku salaysneed dhagarqabayaasha al-shabaab ururka argagixisada ah markay soo abaabuleen howlihii ay soo abaabuli jireen qaar kamid ah oo ay magaalada soo galiyeen laba gaari oo qalabka waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyay ayna ku qarxiyeen laba meelood oo magaalada Muqdisho kamid ah halkaas oo ay ka dhalatay runtii dhibaato aad iyo aad u baahsan oo dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo guryahoodii jiifo dukaantoodii joogo goobihii ay ku nasalahayeen fadhiyo ay ku baabi'iyeen arrinkaas oo runtii aad iyo aad u xanuun badnaa oo ay sameeyeen dhacdadaas inta ku dhimatay inta ku dhaawacantay ayaan guud ahaan Soomaaliya uga tacsiyeynaynaa gaar ahaan eheladii dadka dhaawacan ama dadka dhintay ayaan ka tacsiyeynaynaa waxaan rabnaa bulshada Soomaaliya meel kasta joogto inaan la wadaagno arrimahan sida ay yihiin iyo xaqiiqada iyo waxa ka dambeeya ugu horeyn falkan waa fal argagixiso ah waa falal aan hore u sheegnay in hadafka laga leeyahay ay tahay qof Soomaaliya oo dantiisa haysto in dantiisa ama noloshiisa la gafsiyo aan hadaf kale lahayn meelaha hadda ay soo bilaabeen waxa kamid ah guriga kamid ah suuqa kamid ah lama beegsan xataa meelaha ay gardarrada ku beegsan jireen dawladdu ay leedahay amba ha noqoto maxkamado amba ha noqoto xarumo booliis amba ha noqoto wasaarado oo iyaga nafsadooda beegsigooda oo gaf iyo gardarro ahaa iyo diinka fogaash xataa kuwaas ma aanay beegsan waxay beegsan dukaamo laga adeeganayo waxay beegsan guryo la jiifo waxay beegsan wada la marayo waxay beegsan dad nolol caadi haysto dambiga ay dadkaasi ku jireen waxay ahayd nolol baa u shidnaa nolol bay haysteen waxay tarjamo ka ahaayeen rajada Soomaaliya ee soo laabanayso waxay tarjamo ka ahaayeen dadka Soomaaliyeed ay ugu soo kalsoonaanayaan oo isku soo aaminayeen dalkooda waxay tusaale ka ahaayeen dhiirashada ganacsada Soomaaliyeed ay ku dhiiranayso saacada ka dambayso maalinta ka dambayso inay xoolaha iyo adduunka kale ku isticmaal lahayn ama ku maalgelin lahaayeen inay dalkooda ku maalgashadaan arrimahaas dhagartaas ayaa timid dad bay ku waxyeeleeyeen dabcan dawladda Soomaaliya waxay had iyo jeer ku howlan tahay kana shaqeysaa kow dadka Soomaaliyeed inay nabadooda ka shaqeyso amnigooda amaankooda ka shaqeyso iyo wax ka soo horumar u noqon karo amniga laga shaqeynayay ciidamada sida gaarka ugu tababarnaa oo loogu talagalay ayaa ka howlgalay runtii waxaan rabaa xog muhiim ah dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan in la wadaago waxa suuragal ahayd in muddo intaan aad iyo aad uga kooban lagu soo afjaro arrinkaas laakiin sidii lagu yaqiinaba waxay gaashaan bani aadam ka dhigteen dad Soomaaliyeed oo waxba galabsan waxaan hubaa inaad muuqaalo badan oo aad la wadaagi kartaan ay jiri doonaan dadka ama daawadayaashiina muuqaaladaas oo muujinayo dhalinyaro Soomaaliyeed oo saraakiil ah oo soo badbaadinayo duqeyti Soomaaliyeed oo nimankaasi dabxirka ay isticmaaleen ay soo furanayeen civilianka faraha badan ama dadka madaniga ah oo ciidanka ahayn oo meesha ay gaashaanka ka dhigteen soo badbaadintooda ayaa xaaladda dheeraysay dhanka kale waxaan rabaa in dadka Soomaalida meel kasta joogaan aan xasuusiyo annaga iyo shabaab dawladda Soomaaliya iyo shabaab ma wax loo garnaqi karo rag shalayto waxay soo abaabuleen saacadahan iyo ka hor iyo maalmo ka sii horeeyaba gawaari waxyaabaha qarxo la saaro oo dalka la keeno oo markii uu qarxo xigtadeeda ay noqoto in qoryo iyo rasaas inta la qaato meeshii uu ku qarxay dadkii wixii haray iyo deeqdii wixii u hartay lagu baabi'iyo iyo ciidamadii dawladda oo hamigooda uu yahay kow inaan arrinkaasi imaan oo gaarigaas meel kasta looga hortago oo dadku ay amaan helaan oo goobaha magaalada ka baxsan iyo goobaha gudaha magaalada dhexdeedaba ay uga hortagaan ay ku celiyaan haddii ay dhacdo inuu soo jiiro sidii xalay timida dhacday oo taleex maxaan ku yiraahdaa checkpointiga ah ay soo jireen laga hor yimaado oo haddii ay meel galaan looga daba tago oo waxa ugu horeeyo laga shaqeeyo ay noqoto in dadka ku waxyeelooba hadday dhaawac yihiin la soo qaado hadday bad qabaan la soo badbaadiyo iska dhicinta nimanka la iska dhicinayana ay noqoto mid lagu miisaamo waxyeelada la'aanta dadka ay iyagu gabaad ka dhiganayaan waxa laga yaabaa musawirkaas dadka Soomaalida inuu macno badan u fasiri doono markay arkaan sarkaalka Soomaaliyeed wiilka Soomaaliyeed ee waayeelka Soomaaliyeed ee markaas ay ugu horeyso gacanta ka soo qabanaya soo badbaadinaya iyo dhagarqabayaasha dad aanay garanaynin meesha ay joogaan iyo nooca ay yihiin soo maagayo hadafkoodu uu yahay dil iyo dumin iyo dacdarayn
baraha bulshada mar in badan waxaan ku arkaa iyadoo lagu eedeynayo dawladda Soomaaliya ee dhacdooyinka noocan markay dhacaan waxaan jeclaan lahaa dawladda Soomaaliya waxyaabaha ku howlantaa waa fara badan yihiin waxa ugu horeeya in dadku nolol ay helaan in dadku amni iyo amaan ay helaan in dadku hope amba rajo ay helaan mas'uuliyaddeenu waxay ahayd intaanay arrintaan u dhicin inaan ciidan badan ku fidinay dalka afartiisa gees magaalada Muqdisho maalin kasta ciidamo aan soo tababarnay iyo tiro cusub ayaan dhignaa hadafka aan kaga leenahay ma ahan inaan haday meel galaan ugu celin laakiin waa hadafka hortag ah inaanay soo gudbin waxyaabo badan ay soo gudbin rabeen waa laga hortagay waan ogsoonahay waa garowsanahay dadka Soomaalidu ka daba tag nagama rabaan iyo daaweyn waxay naga rabaan ka hortag iyo joojin wax kasta oo dawladda Soomaaliya heli karto arrinkaas ku wajahaya tababar ciidan haday noqoto qalabayn haday noqoto kharash ku bixin hadii ay noqoto miisaaniyada cadweyn loo qoonday hadii ay noqoto waqti gelin madaxda ay waqti gelis hadii ay noqoto arrinkaaba ku wajahaya waxaan rajaynayaa maalin ka dambaysan inay ka soo raynayso waxaan rajo ka qabnaa inaan gaari doono maalin falku intaanu dhicin ay ciidamadeenu si dhameystiran ugu wada guuleystaan oo magaaladan iyo magaalooyin kale aan nabadayno waxaan rabaa dhanka kale dadka Soomaalida inaan la wadaago ha anaga dawladda baan nahay ha dadaalan ku jirnaa ciidamada tababarnaa waa qalabaynaa qalabku uma dhameystiro waxaan rabnaa inaan dhameystiro tirada aan rabno ma gaarsiis waxaan rabnaa tirada inaan gaarsiis dhaqaaluhu uma dhameystiro waxaan rabnaa dhaqaalahooda inaan kordhino laakiin dhanka kale bulshada Soomaalida waxaan rabnaa inaan la wadaagno inay dawladda iyo ciidamadaba gacan ku siiyaan in arrinkaas wax laga qabto oo dhagar qabayaasha ay wax ka qabtaan waxaan kaga jeedaa shabaab wax laga cabsado ma aha waxa looga cabsaneen cid hadii aad la dirirto iyo hadii aadan la diririn iyo hadii aad deyso iyo hadii aad qabato marna aan kugu daynin oo daayiri kugu dhaafeen oo duqeytinimo kugu dhaafeen oo dhalinyaro civilnimo kugu dhaafeen oo ciidanimo kugu dhaafeen wax dadka Soomaalida ay uga badaan oo aysan uga qayb qaadan ma iman karto waxaan rabnaa qof kasta Soomaaliya waxaad ogaataa jidka markaad maraysid amba gurigaaga aad ku jirto aamin kama tiid shabaab kugu xurmayn maayaan inaadan la dirirsanayn kugu xurmayn maayaan inaad birmageyda tahay kugu xurmayn maayaan inaad carruur haysatid kugu xurmayn maayaan inay dadku dad waayeelo cajisa ay yihiin sidaas daraadeed waa cadow anaga dhan noo socdo oo nolol qof nool iyo meel nool ka jirto iyo nal shidan cadow ku ah sidaas daraadeed waxa loo baahan yahay safsiman Soomaalida inay wax uga wada qabato dawladuna ay horseeday ka tahay arrinkaas wixii su'aalaha aan idin ka jawaabi doonaa waxaan rabaa kale inaan idin sheego saacada aan idin hadlaayo arrinta soo ma dhamaan laakiin saacada ka horeeyaan soo dhamay karo waxaan kaga jeednay civilianka iyo bulshada meesha ku jirto oo iyagu aanay dan kale ahayn inay xabad iskaga dhigaan annagu inaan xabad isu dhigno oo ciidamadeena xabad isu dhigaan oo iyagu soo badbaadinaan ku mashquulsanay waa ku guuleysanay dad maanta ku hoos jira ma jiraan laakiin hawlo ciidan ayaa meesha ka socdo waxaan rabaa inaan idinku soo gabagabeeyo Soomaali meel kasta joogtaba amba waa soo qabanaynaa amba waan dilaynaa nimanka meesha ku jira inta badan aan ku burburtay laakiin maadaama aan wixii oo aan soo wada afjarin ma rabno inaan ka hor dhacno waxaan idin sheegaynaa hal qof oo ku dhintana waa khasaaro weyn intaas ka badan haday ku dhintaan waa khasaaro kale qof Soomaaliyeed la cabsiyana waa khasaaro hanti Soomaaliyeed la burburiyana waa khasaaro wax kasta oo meeshaas ka dhacay waa khasaaro qaran dhaawacyo culus oo isbitaalada la geeyay oo qaarkood sida dhaqaatiirta ay noo sheegeen aan dalka wax nooga qaban karin waxa laga yaabaa dadka qaar dad dan yar inay yihiin aan awoodi karin caafimaad dalka dibadiisa dawladda Soomaaliya maxaa ugu qorshaysan dadkaas markii ugu horeeyay oo dhagartaani dhacda ma aha dhaqanka dawladda Soomaaliya ay lahaydna waxa uu ahaa nimankaasi hadii ay iyaga shaqo ka dhigteen qofka nool oo nabad qaba inay dhaawacaan ama dilaan anaga qofka dhaawacan inaan daaweyno oo gudaha ku daaweyno oo dibadda ku daaweyno ayaa dhaqan ah waxaan ka shaqeynaynaa wax kasta oo ay u baahan yihiin dadkaasi inaan amba xoolaha Soomaaliya iyo awoodda Soomaaliya iyo sharafta iyo karaamada Soomaaliya aan daawo ugu raadino dalka gudihiisa iyo dibaddiisa